Assalaamu calaykum. Wax ka baro taariikhda waddanka Indonesia. Jamhuuriyadda Indonesia waa dowlad dhacda koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Waxay ka kooban tahay 17,508 jasiiradood. Dadkeeda waxa uu gaarayaa 238 milyan oo qof, waana dowladda afraad ee dadkeedu ugu badan yihiin dunida. Indonesia waa dalka ugu muslimiinta badan ee caalamka. Masaaxadda dhulkooda waxa uu gaarayaa 1,919,440 kiiloomitir square. Indonesia waa jamhuuriyad, waxayna leedahay golo sharci dejinaya madaxweyne doorasho. Caasimadeena waa Jakarta. Indonesia waxay xuduud la leedahay wadamada kale ah Papua New Guinea, Bariga Timor, Malaysia. Dowladaha u dhowna waxaa ka mid ah wadamada kale ah Singapore, Philippines, Australia iyo jasiiradaha ay leedahay Hindiya oo kale ah Andaman iyo Nicobar. Dalka Indonesia waa wadan dhaqaalihiisa sareeya isla markaana leh warshado wax soo saar leh, waxayna ka mid tahay 20 wadan ee dunida ugu dhaqaalaha badan ee loo yaqaan G20. Indonesia waxay ka mid tahay aasaasiyaashii ururka loo yaqaan ASEAN oo ay ku midaysan yihiin wadamo badan oo Aasiya ah. Sidoo kale waxay xubin ka tahay dowladaha Islaamka. Indonesia waxay xornimada ka qaadatay Netherlands ee wadanka Holland dagaalkii labaad ee dunida kadib. Dadka reer Indonesia waxay aaminsan yihiin diimo kala duwan, inkastoo ay wada nool yihiin oo ay wax dhibaato ah isku qabin oo qof walbana lagu ixtiraamo diintiisa. Hase yeeshee aqlabiyadda ama intooda ugu badan waxay haystaan diinta Islaamka. Diinta Islaamka waxaa gaarsiisay ganacsato Carabeed oo ganacsi weyn ka wada dhexeeyay oo ka soo jeeda gobolka Hadramaut ee wadanka Yemen. Muuqaalkeen intaas ayuu ku egyahay. Haddaad channel-ka cusub tahay, subscribe, sidoo kale muuqaalka like saar, asxaabtaadana sii share garee, ra'yigaaga nagula wadaag xagga hoose ee commentiga.